munaasabadani lagu daafurayay barnaamij cusub oo la magac baxay tayeynta waxbarashada qaranka ee aqoon jire oo ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland iyo TV-ga caalamiga ee Bulsha TV ayaa lagu qabtay hoolka weyn ee wasaaraddaasi waxaana ka soo qayb galay badiba maamulayaasha dugsiyada sare Hargeysa mas'uuliyiin ka socday xukuumadda iyo hay'adaha warbaahinta iyo sidoo kale macallimiinta barnaamijkan ku baxaya habka maqalka iyo muuqaalka ah ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax waxaana ay si wada jir ugu mahad celiyeen mas'uuliyiinta iyo shaqaale weynaha TV-ga caalamiga ee Bulsha TV sidoo kalena waxa ay xuseen in barnaamijkani wax weyn ka tari doono dhammaan ardayda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan miyada iyo tuulooyinka dalka annaga waxa noo farxada oon runtii jecelayn dadweynaha iyo ardayda iyo cid walba iyo mas'uuliyiinta waxbarashada dareensiyo in badan waxa warwar marka imtixaanka la sameeyo nagu hayn jirtay difference-ka manhajta kala duwan waa inagu filan tahay ujeedadeenu halkan u nimi inaynu runtii ay hirgashay ilaahayna uu inoo hirgeliyo dhamaystirkeeda iyo maxaan dhahay dhamaanshaheeda runtii waxaynu isugu nimi waa waxbarasho waxaana filayaa waxbarashadu waa waxa ugu qaalisan ee marka horeba ilaahay subxaanahu wa tacaala hadiyadda ugu qaalisan ee aadamaha ilaahay siiyey bay ka mid tahay waxbarashadu sideedaba ama wasaaradda joogto waxbarashada saddex arrimood ayaa dhextaal u ah ama lafdhabar u ah waa manhajka iyo kormeerka iyo imtixaanka saddexdaas ayaa u ah nuxur u ah marka laga yimaado maxaan ku rahdaa maamulka iyo maaliyadda iyo lacagta iyo maxaan ku rahdaa waxyaabaha cayn kaasoo kale ahi waxa weeyaan waa support iyagu laakiin nuxurka wasaaradda waxbarashadu waa manhajka kormeerka iyo imtixaanaadka maanta waxaanu fadhinaa ta hore oo ah manhajkan u fadhinaa afar maado ayaa halkan loogu talagalay in ay u noqdaan tijaabo barnaamijka TV-ga afartaa maado oo kala ah saddexda sayniska iyo maadada xisaabta sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimayaasha TV-yada Star TV iyo Som News oo ku hadlayay afka TV-yada madaxa bannaan ee Soomaaliland waxaana ay ballan qaadeen in ay ka warbaahinaan ka qayb qaadan doonaan tayeynta waxbarashada qaranka iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adaha warbaahinta oo uu hormuud maanta u yahay mulkiilaha Bulsho علي فارح حربي ومناسبة مهمة ورباهنتها سوماليلاند أما ورباهنتها الصومالي طبعا وحلقوا سنتي ولقوا أستيي إني مركات هاي ورباهن أديك سته استخدام بقى كمالك إن كمالك سحول مروتشينت hungurigu hor socdo hankooda uu hungurigu hogaamiyo magacoodana uu macaashku hogaamiyo laakiin munaasabaddan maanta waxay beeninaysaa istigmadaas ama shaambadaas qalalan ee ku dhacday warbaahinta Soomaaliland ama ta Soomaalidaba guud ahaan afka warbaahinta ama TV-yada madaxa bannaan ee dalka annagu waxaanu ballan qaadaynaa ka warbaahin ahaan inaanu mar kasta hiil iyo hooba la garab taagnaano sidii kor lagu qaadi lahaa aqoonta waxbarashada iyo tayeynteedaba ka warbaahin ahaan barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo aad u qiimo badanba annaga doorkan wax naga go'an tahay inuu kor u qaadno waxbarashada dalka sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada dawliga ah iyo kuwa breefadka ah waxaana ay ka marqaati kaceen faa'iidada barnaamijkan uu leeyahay ardayda dugsiyada sare ee Soomaaliland gaar ahaan fasalada afraad ee dugsiga sare geesta kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay tafatiraha guud ee TV-ga caalamiga ee Bulsha TV Mustafa Sheekh Umar Geedi waxaana munaasabadaasi ka sheegay waqtiga la bilaabi doono baahinta barnaamijkan in la magac baxay tayeynta waxbarashada qaranka ee aqoon jire iyo waqtiyada uu ka soo gali doono TV-ga haddii aan yara faahfaahiyo waqtiyada aanu jecel lahay iyo waqtiga aanu iminka diyaarinay waxa weeye 140 xalqadood ayaa diyaar ah waxaanay bilaabmayaan casharadaasi 15 bishan aynu ku jirno haddii ilaahay yiraahdo waxaanu jecel lahay inay soo gasho inay maalin walba saacad barnaamijkaasi uu noqdo oo laba xiisadood ah
nuso saace iyo nuso saace laba xiisadood oo kala duwan ah oo ay socdaan inta ka horeysa wejiga hore inta ka horeysa imtixaanaadka oo bilaabmaya insha Allah bisha ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahim Habane waxaana uu aad ugu dheeraaday ahmiyadda uu barnaamijkani leeyahay iyo waxyaabaha uu ka tari doono ardayda aan haysan macallimiin ee ku nool tuulooyinka iyo magaalooyinka dalka waxaana wasiirku intaasi raaciyay in barnaamijkan noqon doono waxqabadkii labaad ee ugu ballaarnaa ee wasaaraddiisu gaadho muddadii uu joogay aasaaska noloshu de waxbarashada kowka ah waxbarashadii inaan tayeyno waynu macno u yeelana waqtigii loo baahnaa baynu taaganahay maanta laakiin ninkana tabarucay waqti badan dee casharkii ma kala go-ayo fikraddana in fact isaga ila yimiday aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa